السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلما أدرياله هدي لو ده هذلو لسكو إمادو discussion لسمايو مناقشة لسمايو وحا إيمانا يو حالك قيب كميدا وحي لسكو هاي لكن مركزتو أو قف كستو وحي وعلوشي سكو جري وقوني اسكو لبوسو كي حالك لغسو غاينا وبنانكا كاستاغو وحي مهاقاقايان مركزتو أو ودا هذلك أو يرادو ومركزتو أو حالك فوقادو هذا ويلكم وحي إسو قرايان نعيب إيو حمان إنان قبنو آن دادك سومالان وقبنو I don't know ميلا كإيمان كرتو أنيكا خطر أهانا دادك سومالان كسو جودو وقرابان نهاي درس بان نهاي إيهل بان نهاي نوع كستان سكود حجرنا يعني دادك أن أوجع لهاي أودون كفيعان محا كيني كرا مركا نعيب maybe wadhanka Soomaaliland wuxuu nacayb ka jiro adinka ayaana nacayb adinka ayaa waxay idin ku jirtaa waxa maamulka naga sameeynayo inaan ku faraxsanahay in qof kasta oo koonfur ka soo joodo uu nacayb yahay horumarka iyo wanaagga qofka Soomaaliland ka soo joodo in la tahay laakiin no wanaagina jecelnahay xumaantiina ma jecelin wallahi baan ku dhaartay maanta hadii ay meesha Muqdisho la iga soo la iga taliyo ee Muqdisho calanka Soomaaliya uu ka luusho haduu Hargeysa kaloo lahaa wax ay kala duwanaan lahayd ma jirto isku mid ba aan lahayd wax ay kala duwan tahay ma jirto so inaad ixtiraaf marka ka raadisaan Netanyahu waxa ay kala qurux badnayd in aad ninka madaxda ina cirre ku qasabtaan in uu Muqdisho ka soo dago waayo way idinku adag tahay labadaba waa laba adag mid dooro waa inaad yuhuud garab ka dhigato iyo inaad qof Soomaali ah oo dantaada gacanta ku hay aad muxuu ahaay u imaado dhahdo walaalo xaqayga iyo xuquuqdeedii baan kugu leeyahay halkaan dhig yaa ku fudud waa yuhuud kugu fudaatay hadduu muxuu ahaay madaxweyne cirre uu yahay madaxweyne xaqa oo aad muxuu ahaay adinka idin shaqeynayo intuu Muqdisho ka soo dago waa Xasan Sheekh intuu kursi la fadhiisto uu dhihilaaya wariyaa xalkayga halkaan dhig wixii aad iga qabta halkaas dhig xuquuqdeeda halkaas dhig ani waxaan aaminsanahay xitaa meesha uu maanta aad itraaf ka raadinaysan haddaad intaad Muqdisho imaadaan aad muxuu ahaay xaqiini iyo xuquuqdiina aad Xasan Sheekh ka qaadataan waxaan aaminsanahay inaad xataa heli kartaan caasimadda magaalada waa ay sheegay wadanka looga taliyo in Hargeysa Soomaaliya looga talin karo maanta waxaad muxuu ahaay raadinaysaan itraaf Soomaaliland waxaad heli kartaan inaan anaga xataa in ku daba feelno seen ku dhahay in ay koonfuray bariyay meel kasto Soomaaliya iyad madax u noqon kartaa Hargeysa waxay noqon kartaa caasimadda Soomaaliya maxaa ku diiday waad leedahay awoodeeda leedahay laakiin Ilaahay ma ku tusin Ilaahay wuxuu ku tusiyay meel yar oo gobol yar inaad isku muxuu ahaay aad isku kaduudo laakiin waxaad haysataa awood iyo power aad na fahmi karin intay la eg tahay marka aad raadinayso xalka ama ixtiraaf aad Netanyahu ka raadinayso maad Soomaaliya dhan la wareegto aad qaadatid maad Soomaaliya dhan madaxnimadeeda qaadatid cid ku diidi karta ma jirto haddaad maanta xal u soo fadhiisato oo diyaar aad u noqoto cid ka soo horjoogsan jirto ma jirto laakiin waxa leen kaga faa'iideysto ma taqaana waxay koonfur in kaga faa'iideysto ma taqaanaan waa adinka oo aan wixii xaqiina iyo xuquuqdiina dad faraha uga qaaday waa adinka oo isku buusay gobollo aan in ku filnayn Soomaaliya dhan baad madax ka noqon kartaan madaxiina kor u qaada dadkiina muxuu ahaaye ii sheegay meel kasto degan yihiinba ama koonfur ha deganaadaan ama waqooyi ha deganaadaan ama meel kasta ha deganaadaan in meel kasta oo Soomaaliya kamid ah ay meeshiina noqoto ya Soomaali maxamed ay wada hadal bad wax ku leedihiin isku imaasha wax ku leedihiin war hadduu Xasan Sheekh maanta wax qabanayo gobollo badan oo Soomaaliya kamid ah buuna war ka haynin waxa ay ku inay nool yihiin inay dhamaadeen in la qabsaday in muxuu ahaaye lala tagay wax uu ka ogyahay ma jirto Muqdisho oo maanta magaalada caasimadda xukumo ma u maleynayo 20 kilomitir baa muxuu ahaa nimanka la yiraahdo aas u joogaan wax uu ka qaban karo ma jirto so awood iyo power aad leedihiin oo Ilaahay in ka qariiba jira inta istustaan aad muxuu ahaa Netanyahu iyo bilaydan wada korka cado aad muxuu ahaa noo keenteen aad banaanka nooga istaajisaan ilma adaryaalo miiska wada hadalka imaada Soomaali hogaamiye madax muxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliya cirra ka dhiga caadi iska dhiga